wafdigani uu hogaaminayay musharax Cusmaan Maxamuud Dufle oo ay kamid ahaayeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar waxaana garoonka diyaaradaha kaga hortagay siyaasiyiin ururada haweenka iyo barbaarta gaashaaman soo dhaweynta kadib ayaa Dr. Dufle waxaa magaalada Jowhar uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xildhibaannimada aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dhawaan lagu wado in lagu doorto magaalada Jowhar ee xarun goboleedka Hirshabeelle waxaan u imid oo aad la socotaan sida ku qoran yihiin warqadaha ay siin tabeelahaba inaan ahay musharax aqalka sare ah waxaan insha Allah taala aan soo dhaweysano hordhac si dhiibaya aan insha Allah taala hadii aan ku guuleysto aan insha Allah taala yaani Hirshabeelle ha noqoto dhinacan Jowhar ama ha noqoto dhinaca Beledweyne in insha Allah taala dowlad goboleedka Hirshabeelle in aan kor u qaadi doono horumarin doono arrimaha caafimaadka iyo arrimaha waxbarashada arrimaha dhalaanka intaas oo dhan insha Allah taala in yaani kor loo qaadi doono iyo ku wajahan arrimaha isbitaalada bacdamaan ahay dhakhtar saa la socotiin waliba yaani 26 sano wadankan ka bixin ahaana odaygii caafimaadka wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo wadanka guud ahaanba marka taas waxaan u ballan qaadayaa maamul goboleedka Hirshabeelle bulshada ku nool insha Allah taala in ay ka baahi beeri doonaan yani horumarinta caafimaadka ama baahida caafimaadka ay qabaan oo ku wajahan isbitaalada MCH-da ama yani xarumaha dhalaanka iyo caruurta lagu daaweeyo iyo wixii kale tasiilaad caafimaad ah Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.